halkani waa raadiyo xorriyo codka shacbiga Ogaadeniya oo aad ka dhageysataan mowjada gaaban ee 19 mitirban saacada Afrikada barina haatan waa 5:15 galabnimo Radio Xurriya waxa kalood ka dhageysan kartaa telefoonka baraha internetka aan ku leenahay iyo YouTube-ka ciwaankiisu yahay www.youtube.com/user/radioxurriyo qodobada aad idaacadeena galabnimo ku maqli doontaan waxa kamid ah walaalow dadka kolkii meesha dagaal ka dhacay jabadu ka baxday kolkii ay ciidamada Itoobiya yimaadeen looma aabadayn wixii dad la soo ururiyay wixii la arkay dadka intii ka badan ay wasiiba qatay wixii la arkay la soo ururiyay hal shakhsi laga tagin ba waxa kamid ah imaamkii meesha deegaanka ugu weynaa deegaankaas galaasho dhan malaqa galaasha laga xukumaa deegaanka galaashe imaamkii ugu weynaa baa kamid ah iyo odayaashii duqeydii ugu waaweyn baa kamid ah dadkan marka xataa waxay la shaqeyn jireen qaarkood dawladda u shaqeynayeen baa sida lagu ogaado lagu tuunsanaaba xasuuq wadareed ka dhacay deegaanka Malqaqa iyo guud ahaan degmada Bambaas oo aan waraysi idinka hayno معهدka daraasaadka caalamiga ah oo shirkiisa sanadkan diiradda ku saaraya Ogaadeniya iyo hay'adda UNBO oo soo saartay baaqota dheer oo ay ku taageerayso halganka shacabka Ogaadeniya balse idaacadda aan ku furanno aayadihii quraanka kariimka ahaa وإن كانت أبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله inagu anfaca waxa inta inagu dhamaaday aayadihii quraanka kariimka ahaa waalinimo jimcaha 11 bisha June 2010 ka dhagaysa raadiyo xorriyo wararka iyo warbixinadii u dambeeyay faalooyin iyo barnaamijyo xiiso leh raadiyo xorriyo codka shacabka Ogaadeniya soo saaraha barnaamijkeena galabnimo waa wariye Cabdiraxmaan Sheekh Faarax aniga oo jaamac dheeraana waan idin la socodsiinaya marka horese warkii iyo wariye Cabdiraxmaan Sheekh Faarax maasanid jaamac cutubyo ka tirsan ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa 6 bishan aan ku jirno waxa uu howlgal isku mid ah oo si cilmiyaysan loo soo diyaariyay ay ku qaadeen askar ka mid ah kuwa wayaanaha oo ku kala sugnaa goobaha lagu kala magacaabo Kaba Gooradheer Imey Bari iyo Gooraanka kuwaasoo dhammaantood baa ka watirsan gobolka Shabeelle weeraradaasi ayaa waxa wayaanaha lagu soo gaarsiiyay khasaare burbur dhimasho iyo dhaawac isugu jira iyadoo ay ciidamadii wayaanuhuna goobahaasi si nafla caarinimo ah haraagoodii ooga qaateen sida uu ku soo waramayo wariyaha Radio Xurriyo oo ka soo warama aaga dagaalka u dhaxeeya ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya askarta gumaysiga Itoobiya ayaa waxa uu sheegayaa dagaalo isugu jira weeraro qorshaysan mir iyo dhabagal kuwaas oo ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya ku naafiyeen askarta daaduunka ee wayaanaha dagaaladaasi ayaa sida uu wariyaha iyagu noo soo sheegay waxay yihiin kuwa aan kala joogsi lahayn 3 bishan lixaad kalaalka oo degmada Baabili ka tirsan waxa ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya weer la beegsaday ciidanka gumaysiga oo halkaas joogay waxayna kaga dileen 2 askari waxa kale oo kaga dhaawaceen 4 askari oo kale 6 bishan lixaad gabrooyinka oo gobolka Jarar ka tirsan dagaal gaadma oo ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya kuwa gumaysiga ku qaaday ayaa waxa uu geystay khasaare burbur iyo dhimasho isugu jira 7 bishan lixaad ciinley iyo diyaar oo gobolka Jarar ka watirsan weeraro mir iyo wareentay isugu jira oo ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya la beegsadeen kuwa gumaysiga ayaa meesha loo yaqaano ciinley waxa laga dilay kuwa cadowga 2 askari waxa laga dhaawacay 3 kale halka diyaarna aan war rasmi ah hadda laga haynin hase ahaatee dadka deegaanka ayaa waxay xaqiijinayaan in xiriyaha cadowga dhexdooda ay oohinta iyo baroortu harbeeshay
wararka dhiilada leh ogaadinaya ka imanaya waxa ay sheegayaan olole dhiilo wato ay askarta wayaanuhu si hor leh ooga bilaabeen guud ahaan dalka ogaadinaya wararkan aan ka helay wariyaha halkaasi nooga soo warramaya ayaa waxa ay sheegayaan in saqbarkii ay ciidamada wayaanuhu magaalooyinka ogaadinaya ka bilaabeen falal ay dadka guryahooda uga kaxaysanayaan iyadoo sidoo kalena ciqaab silicdila oo dheeri ah lagu bilaabay maxaabiistii xeryaha ugu xaraysnayd dad kala duwan oo rayida oo meelo kala duwan oo ogaadinaya ka mid ku sugan oo aan la xidhiidhnay ayaa waxa ay noo soo xaqiijiyeen in argagax iyo qaylo dhaani ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn ogaadinaya iyadoo aan la ogeyn halka la geeyo muwaadiniinta bilaa dembiga ee xilliga habeennimadii aqaladooda laga kaxaysanayo sidoo kale wariyaha radio xurriyo waxa uu noo soo sheegay magacyaanta qaar ka mid ah dadkii ugu dambeeyay ee sida wadarta ah loogu xidhay meelo kala duwan oo ogaadinaya ka mid ah labadii bishan lixaad ee aan ku jirro magaalooyinka Maraaca to iyo Dalaad oo degmada Qorraxay ka waatirsan waxa lagu xidhay dad fara badan oo rayid oo ay magacooda naga soo gaadheen 720 qof oo dadkaasi ka mid ah sidoo kale shantii bishan lixaad isla degmada Qabri Dahare waxa lagu xidhay dad fara badan oo iyadana rayid ah kuwaasi oo 5 ka mid ah aan magacooda helay isla afartii bishan lixaad Laasacaan oo gobolka Qorraxay ka tirsan ayaa iyana waxa sidoo kale lagu xidhay dad tobaneeya hase yeeshee magacyaanta dadkaasi waxaan idinku soo gudbin doonaa idaacadaha iyaga dambe isla xasuuqa iyo ciqaabta ogaadinaya ka jirta ayaan wali ku jirnay waxa ay soo taraya wararka naxdinta wata ee ka soo baxaya gumaadkii ay ciidamada wayaanuhu ka geysteen Malqaqa oo jiga ka tirsan xasuuqan ayaa waxa uu dhacay kadib markii bishii inaga tagtay ciidanka wadaniga xoreynta ogaadinaya xididada u saaray ururo ciidamada wayaanaha ka tirsana kuwaasi oo dadka rayidka ee Malqaqa iyo hareeraheeda ku sugan dhibaato ba'an ku hayay iyadoo markaasina oo wayaanuhu dadkii deegaanka ku bilaabay xasuuqa ilaa maanta to aan la ogeyn inta nafood iyo hantiyeeda uu galaaftay dadka xasuuqu ku dhacay halkaasi ku geeriyooday ayaa waxay u badnaayeen dumar carruur iyo dad waayeela oo iyagu ay ku adkaatay inay cagahooda ku baxsadaan iyadoo sidoo kalena dadkii halkaasi deganaa ay beerahoodii iyo xoolahoodii isaga carareen inta u dhaxaysa Bambaas iyo Dhagaxmadow dadku waa laga kaxay dadka shacabka beerihii iyo raashinkii oo sidii u daadsan ayaa laga kaxay dadkan la laayayna dumar iyo carruur buu ku jiraan dadka dhintay ayaa waxaa la sheegayaa inay 50 sare u dhaafayaan balse waxaana soo gaadhay 34 dadkaasi laayay ka mid ah Cabdullaahi Macallin Aqbal Cabdi Wahaab Cali Daahir Xasan aw Khaliif Abiib Barre Xasan Bedel Omar aw Mustafa aw Ibrahim Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan Faarax Mahdi Axmed Rabiic Sheekh Cumar يوسف أحمد الشون أحمد عبد الله الشني أحمد عبدي محمد أو آذن حسن محمود خليف عبد الله عبدي يوسف بار عدبي محمود بار أحمد قليل موسى أحمد عبدي حي باري عبدي محمد فيصل عبدي محمد عبد واسع أحمد قني عبد المجيد شيخ أحمد ولي عبد النور أحمد الدخري عبد الله شيخ محمد أحمد بلا محمد عبد الكريم النورية فارح حسن عرتي إبراهيم عبدي وار محمد عبدي حسين زينب عبدي أحمد نور محمود حسن ريالي علي محمد حبس بلا شيخ محمود يديري حاشي أو أحمد sidoo kale 26 bishii shanaad ee inaga tagtay iyo kowda bishan lixaad waxa Sharmaale oo gobolka Shabeelle ka tirsan iyo Dar es Salaam oo gobolka Nagab ka tirsan lagu laayay dadka kala Ahmed Sahl Maxamed Yusuf Oriye Nasri Sheekh Umar Ceelaab iyo Abdul Fattah Qorane oo isaga lagu dilay Dar es Salaam Jariyada wadanka ogaadeenaya ee dalka Norway ayaa waxay 12 bishan qabanaysaa shir uu ka soo qayb galayo gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Admiral Maxamed Umar Cusmaan shirkan oo diiradda lagu saarayo colaadaha gumaysiga Itoobiya ayaa waxa halku dhagay looga dhigay geeska Afrika iyo marxaladda maanta shirkan ayaa jariyada ogaadeenaya ee Norway waxay ku marti qaadaysaa dad ajnabi ah iyo qaariyana kamid ah walaalahooda Soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka dawladda Mareykanka Joe Biden ayaa booqasho ku maraya dalalka Afrika isagoo isla markaasina iska diiday inuu lugtaasi marayo dalka Itoobiya dadka khubarada iyo saxaafadda dalka Kenya ayaa sheegay in sababaha Biden uu isaga diiday inuu booqdo dalkaasi Itoobiya ay tahay muran dhex yaala dawladaha Mareykanka iyo ta gumaysiga Itoobiya oo ku saabsan doorasho ku sheegtay ka dhacay dalkaasi iyo eedaha dhanka xuquuqlaadanaha oo ay dawladda Mareykanku u aragto inay xukuumadda kaligii tali Meel Zanaawi meel uga dhacday xuquuqul insaanka Biden ayaa sheegay in madaxda dawladda Mareykanku aysan diyaar u ahayn inay booqdaan dalkaasi Itoobiya ilaa inta hanaanka maamulka dimuqraadiyadda iyo cadaaladda wax laga bedelayo ururka qaramada midoobe u qaabilsan dadyowga aan dawladda lahayn ayaa waxa uu soo saaray warmurtiyeed uu ku taageerayo dadka ogaadeenaya ee gumaysiga Itoobiya muddada dheer soo ragaadinayay warmurtiyeedkana ayaa waxa ururka UNPO uu qaramada midoobay kaga codsaday in guddi caalami ah oo madax bannaan loo saaro qadiyadda ogaadeenaya
iyo sidoo kale in jabhadda ONLF loo aqoonsado mid gubannimo doona sidoo kalena waxa ururku si qoto dheer u cambaareeyay falalka waxshinimada ee askarta wayaanuhu dadka ogaadeen kula kacayaan intaa waxaa inoogu dhammaaday war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay iyo wariya cabdiraxmaan sheekh faarax dalkaygiyo